ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahi weliga ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahimina hakadaahi weliga wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii waxbarashada oo toddobaadkii hal mar ka daawataan Som News TV daawadayaal toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo aanu booqanay jaamacadda Alfa halkaas oo aanu waraysi la yeelanay maamulka jaamacadda Alfa iyo waliba ardayda halkaas wax ka barata يا معلمكينو دينتي أقانتي كذا عذابتو كذا عذابتو أشقي صدور بلا أشقي دور بلا دخلوا خسارة تلقوا دخلوا خسارة تلقوا عدا يهدكيني والدكين هدير صدو على كادشينيو تلقويدي سويا دخلوا خسارة تلقوا دخلوا خسارة تلقوا عدا يهدكيني والدكين هدير صدو على الكادشينيو دلكويدي سوغيا daawadayaal waxaanu hadda ku jirnaa gudaha jaamacadda Alfa isla mar ahaantaasina saaka annagoo doonayna inaanu ka diyaarino barnaamijkii waxbarashada ee toddobaadkii hal mar ka daawan jirteen telefishinka Som News TV haddaba markii aanu jaamacadda tagnay ayaa waxaanu u tagnay arday isku diyaarinaysa imtixaankii midtermka ardaydaasi oo aanu waraysi kala yeelanay bal imtixaankan iyo waliba sida ay ugu diyaar garoobeen haddaba daawadayaal waxaanu si toos ah idinku soo gudbin doonaa ardaydii ka warramaysa imtixaankii iyo sida ay ugu diyaar garoobeen iyo waliba waxyaabihii aan kala kulanay jaamacadda Alfa University jaamacadda Alfa waxay ka mid tahay jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay waana jaamacadaha ugu waaweyn guud ahaan dalka Soomaaliya daawadayaal waxaanu hadda ku jirnaa librariga jaamacadda Alfa librariga si aragtaan ba arday aad u tiro badan oo jaamacadda dhigata ayaa wax ku akhrinaysa waxaanu imika wax ka weydiin doonaa sida ay jaamacadda wax ugu dhigtaan iyo waliba sida ay jaamacadda wax ugu bartaan ardayda wax ka dhigata jaamacadda Alfa adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad ka warantaa waxyaabaha aad dhigataan iyo waliba waxyaabaha doonaysan inaad qabataan بسم الله الرحمن الرحيم وخضر حسن عبدي وحن دكتور فكلك ICT وحبرشة مصيفي عم برناقص سعطة الحمد لله انت لك بتعادل جينيس إمك وحن بيجيني بدو أفر بلاد بيش أفراد يمكن نسوق جلسة بيش أفراد بدي يسوق جلسة بالكور رما جامعات دي وحبرشة دي والله أدبو في عندها markii aad jaamacadda soo gashay waxyaabaha kugu dhaliyay inaad jaamacaddan gasho maxaa ka mid ah laakiin maxaad fakalka ku dooratay horta fakalka waxaan ku doortay waan fakalka waxa ahaa fakalan xiiseynayay jaamacadduna waxaan ku doortay amba aan u yimid fakalkaas inay ku fiican tahay fakalka ICT bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Maadi Khadar Cabdi waxaan ardayda morningka freshka waxaan kuliyadda accounting ahay waxaan ka dhigtaa accounting ka dhigtaa morningkii subaxii baan ka dhigtaa waxaan gelinaa imtixaankii baan gelinaa waxaan iska diyaarinaa xiisadihii loo lahaaban imtixaanka ayaan iska diyaarinaa marka imtixaanka xilli ma gelaysaa waxaan noo bilaabmayaa 3 bisha noo bilaabmaya marka imtixaankaasi intee leeg buu soconayaa
ilaa 3 sano. imtixaankaasi ma midkii semesterka hay mar termka ha mise waa imtixaankaasi waa imtixaankii finalkii jaamacadda weyn semesterka marka hal semester baa idin dhamaaday adigoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran jaamacaddan iyo waxbarashadeeda magacaygu waa Isma Xasan Cabdi jaamacaddan aad iyo aad bay u fiicantahay wallahi waxbarashadeeduna aad bay wanaagsantahay aniga iyo cajab gelis jaamacaddan adigu maxaad ka barataa anigu waxaan ka bartaa fakalka managementiga marka intee lag baad doonaysaa inaad ka gaadho ilaa heer waxaan ka doonayaa inaan ka gaadho maxay ahaydeen master maxay ahayd PhD markaad dhamayso jaamacaddan PhD aad diyaariso kadib maxaad leedahay waxaan isleeyahay naftaada aad ku afacdiyo wadankaaga hadii alla yiraahdo aad baad mahadsantahay adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad warbixin kooban naga siisaa jaamacaddan iyo waliba waxyaabaha ay dhigto bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha Somali News waxaan nagu soo booqateen jaamacadda anagoo ku jirnaa hawl maalmeedkeygii waxbarasho aad baan idinka mahad celinaa anigu waxaan ahay ardayda sanadkan baxaysa ICT-ga ka dhigata computer science-ka jaamacadda su-aashaad weydiisay waxaad ka waran jaamacaddu aad bay u fiican tahay waxbarashadeedana aad baan ugu dadaalnaa macallimiinteeduna aad bay noola dadaalaan insha Allah waxaan jecelnahay inaan noqono jiilkii waddankan wax badan ka bedela haddii la yiraahdo adigu bal ka waran jaamacadda imika waxaad sheegtay inaad gabagabadii ku sii jirto maxaa kuu qorshaysan mustaqbalkaaga anigu wallaahi inkastoo aan imika ardaynimadii ku jiro haddana qorshayaal badan baan dhigtay jaamacadda aqoontan aan ka bartaan doonaya inaan ku dabaqo shaqooyinkayga iyo inaan nolosheeda ka horumariyo wax kaga bedelo waxaan aad u bartay oon aad u baadhay qaybahan computer science-ka adigu waxaan aad u baadhay database systems-ka inaan website-yada kala sameeyo in aan sameeyo haddii la yiraahdo application-ada mobilada inaan programming aan noqdo qayb networking aan insha Allah aad baan ugu dadaalay marka waxyaalahaas aan qorshaystay sidoo kale waxaan waraysi la yeelanay maamulka jaamacadda Alfa qaybteeda magaalada Hargeysa isla marhaantaasina maamulka oo aan ka waraysanay bal heerka ay jaamacaddu maraysa aqoonteedu dawladda waxaan hadda xafiiskiisa ugu soo galnay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Alfa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo bal aan waraysi kala yeelan doono bal jaamacadda iyo waliba sida ay waxbarashadeedu u socoto ugu horeyn ku soo dhawow gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda aad mahadsantii waan dhawahay News waxaan idinku hambalay inaad nagu soo booqataan xarunta jaamacadda waad mahadsantii bal waxaad warbixin kooban naga siisaa jaamacadda Alfa iyo waliba taariikhdii ay soo martay iyo waliba waxbarashadeeda runtii taariikhdeedu ma dheero waa jaamacadii la furay inkastoo jaamacadaha Soomaaliland baanay da'weynayn 2009 jaamacadda la aasaasay oo lagu aasaasay xarunta Hargeysa oo kaliya hadda waxaa muddo ku siman 9 sano ama ku dhow 9 sano ay jirtay jaamacaddu waxa ay leedahay campuskii lagu aasaasay oo ah magaalada Hargeysa iyo 2 campus ama 2 branch oo kale oo ku kala yaala magaalada Berbera ee gobolka Saaxil iyo magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer marka 3 branch way hadda ku hawlgashay jaamacaddu bal ka waran jaamacaddan iyo waxbarashadeeda bismillaahir rahmaanir rahiim marka jaamacadda la leeyahay waxbarashadeeda aynu ka warhamayno waxaanu eegaynaa kolbada maraaxilka iyo halka aynu joogno mar Soomaaliland dhexdeeda aynu eegaynaa marna caalamka kale aynu eegaynaa marka Soomaaliland dhexdeeda markaynu qiimeeyno waynu eegnaa waxbarashadeena in wax casbisnaan badan ama dhib badan ay ka taagan tahay waa wax dhawaan u la aasaasay taariikhdoodu ma dheera jaamacaduhuna waxa ay inta badan ku dagaalamaan ama qayb ka ah waxa weeyaan muddada ay jireen iyo faca ay soo jireen iyo inta ay wax soo wadeen iyo khibradda ay waxbarashada u leeyihiin iyo aqoontaba dabcan jaamacadaha wadankeenu waa jaamacadaha aan wada da'weynayn oo da'dooda ay yar tahay taasoo bay ka qayb tahay waxa kale oo iyaduna aynu u eegaynaa mar kale jaamacadaha caalamka waa jaamacado resources ama khayraad kala duwan haysta waa jaamacado muddo dheer soo jiray waa jaamacado dawladuhu ay dhiseen oo sida dawladaha si dhaqaaluhu yihiin bay hadda jaraale iyaguna ay jaamacaduhuna ka qayb yihiin marka waxa jaamacada saameyn kule mar walba
wadanka iyo marxaladda dhaqaale ee wadankaasi ku jiro ayaa saameyn toosa iyo saameyn dadban labadaba kule laakiin marka intaa ka nimaadno waxbarashada Somaliland oo dee asaaskeedu waa 2000 maxaa la yiraahdaa in secondaryada u horeeyay ay dalka soo baxaan jaamacaduhuna ay asaasmaan isla xilligaasi marka la barbar dhigayo jaamacadaha kale dalka jira waxa weeye runtii dee kaalin muggeeda labaanu kaga jirnaa oo culeyskeeda leh oo waxa weeyaan waxa laga garan karaa waxa weeyaan dee sida ardada aan soo saarnay iyo suuqa markay u baxeen ay ku yihiin haddii ay tahay markaa kuliyadaha kala duwan ay jaamacaddu bixinayso oo hadda ilaa 6 kuliyadood oo kuliyadaha qaar ay 4 waaxood leeyihiin oo tusaale ahaan kuliyadda engineering oo kale 2 bay leedahay kuliyadda caafimaadka oo kale 3 bay leedahay kuliyadda business oo kale waxay leedahay 4 waxaasoo departments ah oo dee maamulkoodii iyo hawshoodii laba dhammaantoodba jira marka xilligan maanta lagu jira laakiin guud ahaan marka la isku wada daro jaamacaddu waa xilligeeda ugu fiicnaa hadday tahay tirada ardayda ee ay soo saaraysa sanad walba iyo awoodda ama khibradda ay leedahay muddada ay soo jirtay labada marka la isku daro waxa weeye mid ahmiyadeeda leh bal waxaad ka warantaa iyada jaamacadda fakalada lagu dhigo iyo waliba siyaabaha ay ardaydu u kala jecel yihiin runtii ardaydu dee Somaliland oo dhan waxaad moodaa inay dhinacuun waxay u badan yihiin departmentyada IT-ga iyo businesska iyo caafimaadka imika soo galay 3 department ayaa jaamacadda ugu xoog badan waxa kale oo soo jira departmentka lawga ama sharciga oo runtii aan nahay jaamacadda kale ee private ee bixisa hadda ardaydiisuna ay yihiin Somaliland oo waxa bixiya 3 jaamacadood labana ay dawli yihiin iyo anaga 2 public iyo anaga private marka 3 jaamacadood waxaan maleynayaa sanadkan marka la eego u dambeeyay tirada ardayda ee soo gashay marka la eego waa ardayda ugu badneed isla markaana 3 jaamacadood baan filayo ugu badneed jaamacada soo gala ee departmentka lawga gala ICT go kale waa department saameyn weyn aynu ku leenahay hadday tahay dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda aanu joognaba businesskiiba isaguna jira oo isaguna 4 waaxood ama 4 department u kala qaybsamo oo departmentka xisaabaadka accountingka departmentka maamulka managementiga departmentka dhaqaalaha ama economiga iyo departmentka afraad oo ah human resource managementiga waxa kale oo jira iyaguna social science-ki oo ay ka mid yihiin development study-gi oo hadda socda waxa kale oo jira jaamacadda waxa leedahay waa jaamacadda ugu horeysay Somaliland ee regular ama arday si toos ah uga qalin jabisay saxaafaddu ay ka baxaan jaamacadda Alfa waxa kale oo aan leenahay engineering-ki oo iskugu jira civil engineering-ki qaybtii dhismaha iyo telecommunication-ka oo qaybtii isgaarsiinta dhammaan departmentyadaas waa departmentyada shaqeynaya departmentka caafimaadka oo runtii iminka aad moodaba inuu noqonayo dee departmentyada ugu xooga badan dalka markay noqoto waxa weeye laakiin muddo yar isagu marka loo eego labada kale ee businesska iyo IT-gaba ka da'yar waxa aanu leenahay waxyaalihii kaabayaasha oo caafimaadka oo dhan hadday tahay public health-ki hadday tahay medical laboratory-gi hadday tahay nutrition-ki oo ay ka qalin jabiyeen hadda ilaa iyo 4 dufcadood qaarkood qaarna ay 3 dufcadood ka qalin jabiyeen qaarna 1 dufcad ay ka qalin jabiyeen waliba waxa dheer branchada kale ama kuliyadaha kale jaamacadda Alfa ee ku yaala gobolada sida Berbera iyo Burco waxay leeyihiin nursing iyo midwifery aanay qaybta Hargeysa iyadu lahayn marka dhamaantood runtii waxaan filayaa in marxaladooda ay aad u fiican tahay macallimiin ku filan lahayo caqabada ugu weyn inta badan hortimaada waxa weeyaan waa practicalka ay ardaydu sameynayaan kaana iminka waxaad moodaa inaan inta badan aan waajahnay oo aanu wixii ay u baahnaayeen fundamentalka ama asaaska ahaa aanu hadda ka dhamaystirnay IT-go kale awal waxa la isticmaalayay nidaam ah kombiyuutarradii laakiin hadda waxaan u wareegnay oo iminka hawshiisii ay sii dhammaanaysaa in hab server ah oo ay ardaydii faa'iido badan oo xagga practicalka ay ku helayaan inay helaan marka waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan adeegaas oo dhan adeeg inay tayeeyaan waxbarashadii iyo kuleedii kala duwanaa ardayda lawgu waxay leeyihiin remote court-ka ama maxkamad ay ku dhex samaystaan jaamacadda oo ay ku matalaan kiisaskii ay markaa la kulmaan oo noqonaysa inay sameeyaan si practical iyaga iyo macallimiintoodii iyo ardaydii iyagoo isku qaybinaya intii qaybood ee dacwoodihii iyo qofkii la dacweynayay iyo garsoorayaashii iyo ciddii maxaa hadday markaa jirto xeer ilaalintii sharci ilaalintii almost intii section ay booliska soo eedeeyay iyagoo intiiba sameynaya si ay markaa u helaan khibrad ku habboon maxkamadihii bay tagaan oo booqdaan oo ka shaqeeyaan marka runtii aad bay ugu mahadsan yihiin iyaguna inay saa noola shaqeeyaan runtii maxkamadda sare oo kale ayaa caawinta ugu faraha badan la qaybta sharciga siisa
oo iyaduna ugu deeqda marka qaar inay xitaa macallimiin iyo aqoon-yahano ay leeyihiin inay u soo diraan oo ay tababar ku dhex qaataan jaamacadda dhexdeeda marka halkaas xaaladda iminka aad u fiican xaaladda waxbarashada iyo kulliyadda bal ayagana waxaad warbixin naga siisaa waxaa jira jaamacaddu waxay leedahay hablayeena ma dhigtaa waxaa la yidhaahdaa tayada waxbarashada habluhu way hooseysaa bal ka warrama idinku jaamacad ahaan sideeba isku tiintay hablaha waxbarashadooda horta tayada waxbarashada habluhu ma hooseysa ee waxaa jira tirada ayaa lagu kala badan yahay tirada markay iskuulka soo galaan primary-ga hablaha iyo inamada waxaad moodaa in habluhu 5% ilaa 7% ay dheer yihiin inamada laakiin markuu iskuulku sii socdo ee galaaska afraad la marayo way isku soo dhawaadaan marka galaaska sideedaad la gaaro waxaad moodaa in inamadu ay dib u kordhayaan secondary-ga markay yimaadaan habluhu 3 meelood oo meel bay ka noqdaan jaamacadda markay yimaadaan hoose u sii dhacaan marka tiyadoodu ma xuma oo lama laha tayada hablaha ayaa xun ee waxa weeyaan tirada hablaha ayaa ka yar tirada inamada hase yeeshee taasi waxa weeyaan kolba waa dee qaabka iyo baahida iyo dhaqanka meel ay leedahay marka dhaqankeennii hore ayaa inta badan la odhan jiray ma dhiirigeliyo hablaha laakiin hadda waxaan filayaa qoys walba hablihiisa iyo inamadiisu inay u siman yihiin laakiin way dhici kartaa waxyaalaha yareeyay caqabadaha qoyskuna ka qayb uu noqon karaa iyaga oo dee hore u guurso inanta markay secondary-ga dhamaysato ay dee 19 jir ama 18 jir batay ama 20 jir batay aqal yeelatar way ka qayb qaadan kartaa iyadoo jaamacaddii bilowday inay jaamacadda dhexdeeda dibadda aqal samaysato oo isaguna dee ay taasina way ka reebi karaysaa laakiin ma odhanayno waxbarashada tay ahaan bay ka hooseeyaan taa waxaanan u odhanaynaa u diidana waxa weeye dee jaamacadda waxaa soo maray ilaa waxay qalin jabisay 6 jeer marka 6 jeer ay qalin jabisay dee way dhacday marka qaarna inamadu inay horreeyeen marka qaarna ay habluhu horreeyeen hala dilo hablaha laga badnaado dee jaaniskii markaad ka badantee 10 inan iyo 3 hablood ama 10 inan iyo 4 hablood ay yihiin dee jaaniskii inamadu wuu badanaya marka 6 sannadood inamadu ha ka badsadaan laakiin waxaan rumaysanahay dee iyaguna kaalintooda kasoo baxeen sanado ay hogaaminayeen ayaaba dhacday dee iyagu u sarreeyeen maya sanad maaha weliba 2 jeer baabay habluhu uun ay u sarreeyeen bal waynu ognahay waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka soo baxaya haddana ay haysato shaqo la'aan bal idinka ka jaamacad ahaan dhalinyarada bal maxaa ku guubaabisaan si laakiin shaqo la'aantooda maxaa kala dagaalantaan maxay idinka qorshaysan ka jaamacad ahaan bismillaah raxmaan raxiim su'aashan waa su'aal aad ugu soo noqnoqotay jaamacadaha jaamacadu waa goobo waxbarasho maaha goobihii loogu talagalay in iyagu shaqo abuurka ay abuuraan laakiin dadku waxay isweydiinayaan ardaydan ka soo baxaysa jaamacadaha maxay u noqon waayeen qaar iyagu shaqo abuur sameeya jaamacadaha waddankeena ka jira waxa weeye jaamacado loogu talagalay ardaydu inay waxyaalaha ay baranayaan ama maadooyinka ay baranayaan intooda badan waa maadooyin la xiriira inay xafiisya fadhiistaan waa maadooyin la xiriira inay xafiisya ka shaqeeyaan waa maadooyin la xiriira hadii jaraale in aanay noqonin in ay iyagu yihiin kuwii technical ama farsamo ahaan runtii markaa horta kow waxa waddanka aanu lahayn oo ka maqan farsamadii gacanta markaa farsamada gacanta waana muhiim dhaqaalahana way u fiicantahay waddanka oo way kobcisaa qofka farsamada gacanta ka baxaana inta badan isagu shaqadiisu waxa way yimid bannaanka taalo uu helaya isla markaaba laakiin jaamacadaha tirada aynu soo saarayno iyo shaqooyinka la abuuro ayaan islahayn oo shaqooyinka la abuuro inta badan dadku dawladda ku noqdaan dawladdu shaqo abuur ma bixiso dawladdu siyaasadda shaqooyinka lagu abuuray inay la timaado weeyaan dawladdu waa inay dhistaa habkii ay ganacsatada ama waxaan loo yaqaano ganacsiga dadka gaarka ay leeyihiin waa sidii loo xoojin lahaa loo wanaajin lahaa saaxadda ay ku shaqayn lahaayeen siyaasadda ay ku shaqayn lahaayeen laakiin may dhicin caalamka waddan la yiraahdo dawladda loo shaqaynaya hadda shucuud ma nihiin meesha waddankeenu iyo qaabka uu samaysan yahay waxay tahay markaa runtii way dadaalayaan oo ganacsi fara badan oo gaar loo leeyahay xawaaladihii telefoonadii isgaarsiintii meheradii kale ganacsigii dee waa kuwan maanta ku nool nahay dad badan ay ku tiirsan yihiin laakiin iyaga dee awoodda ay leeyihiin maadaama aynaan warshado lahayn warshaduhuna waa muhiim oo waxay iyagu muhiim u yihiin hal warshada laga yaabo inay dhowr boqol oo shaqaale ka shaqeeyaan ama kumba ka shaqeeyaan halka meherado dhan oo dabaqyo ah ay ka shaqeynayaan 10 qof ama 15 qof ama wax la midi markay noqoto trading ama ganacsigan isweydaarsigeenu leenahay sida aawadeed markaa u leeyahay waxa weeyaan jaamacadu maaha goobihii shaqada ee waa goobihii iyagu inay tababaraan xaaladda dee waddanka aynu ku jirana qayb bay ka yihiin oo dee dhalinyarta maanta cabanaysa dee annagu xilli aan shaqaadu aan laba aqoonba inay shaqa jirto ayaanu soo marno dee dhowr iyo 9 meel loo shaqeeyaaba dawlad iyo hay'ad iyo cid kale toona dee may jirin qof iyo labada qof ee shaqeeyaana way tilmaanaayeen laakiin maanta iyagu jaaniskoogu ka badan yahay marka mar walba jaanisku sii badanayaa isla markaa waxa iyaguna soo badanaya ardayda faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa
midda kale ee lagaga caban kara waxa weeyaan ardayda jaamacadaha ka baxaysa uma tayaysna inay iyagu noqdaan kuwii abuuri lahaa shaqooyinka taasina waxa keenaysa waxa weeye in manhajyada waxbarashada macallimiinta wax u dhigaya in jaamacadaha laftooda da'yaro khibrad awood fara badan aan lahayn iyada oo digayga Soomaalida marka la eego waxbarasho ahaan meelaha ugu waxbarashada fiican aynu ku yaalaan Soomaaliland sida Hargeysa iyo Boorame iyo haddana waxa weeyaan marka loo eego caalamkii kale uma diyaarsana marka taas waa hadii jeer isku keenila laakiin waa in laga qanciyaa oo la sheegaa inay jaamacadu yihiin goobihii waxbarashada iyo iskuuladu maaha goobihii shaqo bixinta shaqooyin way bixiyaan intaasoo macallin baa jaamacadda ka shaqeeya intaasoo shaqaalaha baa ka shaqeeya laakiin dee jaamacad waloo ay ka shaqeynayaan 100 macallin dee 1500 arday bay haysaa markay soo baxaan noqon maayaan iyagay deynay haddana dib ugu noqdaan macallimiintii oo ay professionally dib xaggan u soo galaan waana cadday caqabado taagan oo runtii dhaqaalaha iyo duruufaha waddanka ka jira ayaa meesha yaala waxaana waxa uu aabba ah oo ay tahay in la hormariyo siyaasadii lagu abuuri lahaa shaqooyinka siyaasadda muhiim ah dadka la soo saaray ma badna aanu ma aaminsani waddan dhan oo Soomaaliland oo ay ka soo baxayaan sanadka dhan 4,000 oo arday ama 5,000 oo arday 3,000 oo arday oo 4 milyan oo qof ahi wallahi waxa weeye waa tiro aad u yar inay soo baxaan waxa ay tiro ka badan ay fursad u helaan jaamacadaha galaan ka soo baxaan idinku ka jaamacadahan inta aad ajaaniba doonanaysaan miyaanay ka fiicnayn dhalinyarada aanay dhiirigelin u hayn inaad 10 arday jaamacadda sanad kasta ugu sareeya qaadataan isla marhaantaasina aad shaqaaleysiisaan miyaanay dhalinyarada ku dhiirigelin inay wadankooda wax ka qabsadaan kadibna ay wadankooda wax u taraan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeyaan in shaqaale qof la doonto maxaa sababay haddii la leeyahay jaamacaduhu waxay doontaan macallimiin ajaaniba iyaga oo helaya muwaadiniin Soomaaliland u dhashay ama Soomaaliya oo ka shaqeyn kara oo shaqadan qaban kara taas waxa weeye khalad weyn laakiin khaladkaasi waxa qayb ku yeelanaysa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay tahay inay xakamayso qof ajaaniba oo aan loo baahnayn ama qof ajaaniba hadan si kale u yiraahdo oo qofkii la midka ha wadanka laga helayo maaha in ogolaansho macallinimo la siiyo waa in laga joojiyo waa koow qodobka labaad wuxuu yahay jaamacadda Alfa oo macallimiinta jooga ay ku dhow yihiin 100 macallin hal qof ayaa jooga oo ajaaniba halka qof waa macallin Pakistaniya waa macallin PhD kusta IT-ga computerka waxa loo yaqaano ma jiro hadduu jirana uu yar yahay laakiin Soomaaliland gudaheega ma jiro hal qof oo Soomaaliya oo darajada PhD kusta shahaada loo yaqaano department waxa loo yaqaano computerku ma jiro taasa keentay marka baahida noocaas jirta mid labaadna waxa weeyaan waxaan leenahay koorsooyin qaybta darajada labaad ee jaamacadda darajada labaad ee jaamacadda waa master programka waxa loo yaqaano master programkana waxa shardiya in qofka dhigaya uu laba mid noqdo either inuu professor yahay professor marka leenahay waa qof jaamacadaha muxtarimka la yaqaan caalamka ay siiyeen ogolaansho inuu professor yahay iyo inuu yahay qof PhD ka qalin jabiyay labadaasi midkood buu wadi karaa marka macallimiinta noocaas dibadda aanu doonanaa sababta keentayna waxa weeyaan waxaan la helaynin macallin Soomaaliya oo PhD oo macallimana ku shaqeynaya haddii qof iyo 2 iyo 3 iyo 10 ba la heli lahaa malama gaaraan be 10 qofna waa 10 qof ama siyaasadda galay ama hadaan siyaasadda galin hawlahooga gaarka wata marka macallimiinta aanu dooranayno in kastoo macallin Soomaaliya hal marna caawiyay oo noo dhigay hase yeeshee haddana macallimiintaasi ajaanibka waxaan u doonanaa waa baahida jirta shuruudii ahayd in la helo macallin awoodda aqooneed ee noocaas leh ayaa kaliftay inaan macallimiinta keeno waa nagu qaali waa nagu dhibo diyaarad baa la soo saaraya huleel buu deganaanaya cuntadiisii baad qabtaa muddada uu kula joogayo weliba permanent kuma waa macallin temporary oo jaamacado kale ka dhiga marka asbaabahaas oo dhan laakiin hadday jiraan jaamacado degree programka ama darajada koowaad jaamacadaha ay u dhigaan arday ajaanibi may haboonay waxaan aaminsan macallimiin ajaanibi waxaan aaminsan in macallimiin muwaadiniin la siiyo haddii ay dhacday jaamacadu sameeyeen xukuumaddu waa in talaabo sharciga waafaqsan ka qaada oo dadka u baahan ee reer Soomaaliland ee baahida u qaba waa in shaqooyinka noocaas ay helaan dawladuna ay soo dhex gashaa oo ay noqoto qofka noocaas in shaqada ka joojiso caalamkana way sameeyaan ma haynagu waxaan diidanahay wadamada jaarkeena Ethiopia, Kenya, Djibouti suurtagal ma aha qof ay haystaan in qof la mid ah dibadda laga keeno marka waan inuu intii qaadanaa oo dadanaheena ilaashana bal idinku maxaa ku xulataan macallimiinta macallimiintu waa laba macallimiintii hore ee da'da ahayd ee Soomaaliya tababartay waa dad professional ah oo khibrad lahaa bay haayeen waa dad muddo 40 sanadood ama dhowr 40 sano macallimiin soo ahaa laakiin runtii way daba yar yihiin wax macallimiin oo lama soo saarin taasi waa halis ku soo waajaan inta joogtaana waa in ama xanuunsanaysa ama da'ah oo tiradoodu mid iyo 2 iyo 3 aan dhaafin
gaabka way baneeyeen dadka macallimiintaasi ma ahayn macallimiin darajada labaad iyo jaamacadda maray laakiin iyagoo darajada koobaad ka baxay bay khibrad muddo dheer ah ay soo lahaayeen tababar macallimiin way qabeen qolada labaad waa qolada yaryar oo macallimiina qoladaasi aqoon way leeyihiin digriigii koobaad iyo kii labaad way sameeyeen laakiin maaha dad xirfad yahana ah oo macallimada loo tababaray oo qualified ah oo waxaan saa u leeyahay waxa weeye qofkan jaamacadu ka baxay laakiin inaad macallin noqotaa waxay u baahan tahay iyaduna inaad jaamacadu ay tababar ku siiso oo tababarkeedii qaadato adoo aqoonteele oo aqoon-yahana oon qofna la diidaynin ama aan la yeesaynin ayaa laakiin waxay shardiya inuu qofkani xirfad u sii leeyahay inuu wax dhigi karo caqabada ugu badan ee macallimiinta da-da yar haysata waxa weeyaan iyadoo aanay waddankeeni jirin kulliyad tababarta macallimiinta iyadoo oo marka ay dibadaha u baxaan aanay suurtagal ahayn inta badan inay helaan tababarka macallimiinta taasaa keentay markaa in macallimiinta aynu haysanaa yihiin macallimiin ku wada dadaal iyo khibradda ay u leeyihiin muddada yara iyo aqoontooda iyo kartidooda waanu hambaliyeynaynaa hase yeeshee weli waxa maqan fursadii ay tababarka ku heli lahaayeen fursadaasina in la abuura waa muhiim oo qaranku abuura si wada jira loo abuura oo macallimiinta jaamacada la gaarsiiya heer mustawe lamida kuwii macallimiintii hore ee Soomaaliya oo iyaga ka khibrad badan ka aqoon badan aqoonta markay noqoto macallimiinta hore darajada koowaad bay haayeen ee Soomaaliya ay soo saaraysay laakiin macallimiinta maanta jooga waa macallimiinta darajada koowaad iyo darajada labaad oo yacni bachelorta iyo master degree labadaba wata ee waxa ka maqan laakiin waxa weeye tababarkii waxa kale iyaduna soo wajahday language ama luqadaha oo saameyn fara badan ku leh macallimiinta iyo ardaydii labadaba ardaydii awoodooda waxbarasho ee luqadu way hooseysaa Soomaaligii way ku liitaan ajaanibkii kale luqadahooda Ingiriisku ka yahayna way ku liitaan iyadoo labada caqabadoodba hortaagan yihiin oo ardaygu awoodiisa waxbarasho aqooneed ee uu Soomaaliga u leeyahay aanay jirin haddii jirtaan ay yartahay uu ku hadlayaa laakiin hadda tira waraaq qor Soomaaliya oo la doonayay in formality iyo nidaamkii warqadda loo qoriyo ay raacdo ma qori karaan 90% ardayda Soomaalidu ee iskuulada ka soo baxaysa ay jaamacadaha imanayaan jaamacadana waxay ugu imanayaan iyadoo oo laga yaabo in la isku dayo in loo tababaro sida warqadda Ingiriisiga ku qori lahaayeen waxaana la baaray UNESCO soo saartay warbixin odhanaysa qofku haddaanu luqadiisa uu u dhashay aanu awoodaynin waxa ku qabto awood uma laha inuu luqad kalena ku qabto haddii xitaa luqadda labaad garanayo marka caqabada noocaas way haystaa ardaydana waxa u baahan markaa sida madaxweynuhu dhaartii dhood ka dhawaajiyay ee yiri waxaan u baahanahay in la saxo waxbarashada iyadoo tiisari noo taagantay laakiin waxaan awood saaraynaa madaxweynuhu yiri waxbarashada hoose waa ku dhawaaqay marka inuu buugaag siin doono arday wal oo iskuul dawladeed ku jira mar hataa aan aaminsanahay anuuna waxa weeyaan wax waliba haani guntay ka toolantahay in waxbarashada hoosta laga soo talo in galaaska koowaad iyo labaad awood la saaro in ka afraad loo yimaado in ka sideedaad loo yimaado in deetana secondary-ga ama darajadii dambe ee iskuulka loo yimaado in jaamacadii dabadeetana iyadana teedeedii marka la xoojiyo iyadoo aynaan lahayn jaamacaduhu ha sugaan intaas oo dhan oo jaamacadu waxa weeyaan maanta Somaliland gudaheega waxa ka furan dhowr iyo 30 jaamacadood dhowr iyo 30 jaamacad si wada furnaan maayaan waxaanay u furnaanaynin dabeecada ayaa bini aadamka dabeecadeenna ina baraysa inaanu wax sii jirin waxa sii jiri kara oo kuwa tayada leh ee sustainability ama waxa la yiraahdo joogteynta ilaaliya ee ku dadaala in ay shuruucda u hoggaansamaan abuuraan nasaaxadii iyo goobihii iyo in deegaankii waxbarashada suurtagelin lahaa insha Allah intii ku dadaal lahayd inaan ku dadaalo oo jacayl ku dadaala alfana ay ka noqotay ku dadaasho inay deegaanka waxbarashada ee ay ku nooshahay haday tahay tii macallimiinta manhajka inta ardayda in intaba ku dadaasho si loo helo arday tayo leh waa in la helaa waxbarasho macallinkeedu tayeysan yahay curriculumka ama manhajka waxbarashaduna ay tayeysan yihiin agabkii waxbarashada ka qayb qaadan lahaa oo tayeysan loo helo markaas aynu helaynaa arday tayadiisu ay saxan tahay oo wanaagsan tahay waa maxay fariintaad u dirayso baahda waxbarashada iyo waliba dadweynaha ku daawanaya runtii horta de labadaba waxa ka mas'uulada xukuumadda dawladda in dawladda wixii siyaasad la xiriira jaamacaduhu habka u shaqeynayaan qaabka loo tayeynayo sidii loo wanaajin lahaa si loo helo arday caafimaad qaba horta siyaasadda waa in la sameeyaa haday baarlamaanka tahay siyaasadda waxbarashada qaranka ee haday tahay siyaasadii aktigii maamuli lahaa lagu maamuli lahaa jaamacadaha lagu furi lahaa hadii mid la xirayo oo ay ka dhacdo heerkeeda waxbarasho lagu xiri lahaa loo mari lahaa waa in la helaa intaas waa muhiim de sharcigaana wax walba ka horeeya
fulintiisuna waa qodobka labaad waa in markaa la tayeeyaa ciddii fulinaysay oo ah markaasi dabcan wasaaradda waxbarashada shaqaalaha u baahnayd adeega u baahnayd oo dhan ay heshaa iyada iyo markaa guddida tacliinta sare marka loo yimaado markaasi goobaha waxbarashada mas'uuliyad bay qaadeenoo saaran marka mas'uuliyadda saaran ee waxbarashada waa inay waajibaadka inta awoodooda ay ka soo baxaan waa waajib aakhirana lagala xisaabtamayo adduunyadana ay muhiim tahay xisaabtankeedu ay aad u qiimo badan tahay markaasi aynu helno wadan caafimaad qaba waa inaan ubadka aynu gacanta ku hayno mas'uuliyad dheeraada iska saarnaa oo aynu u adeegsanaa intii aynu awood u leenahay ee khayraadkeena nooc doonaha ahaadee bulshadana waxaanu leenahay waxa weeyaan waxaad moodaa hadda iska teknolojiyadii baa saameyn ku yeelatay oo ilmihii wax badan oo awood loo saaraya ma jiro marka bal waalidka laftiisiina dabal inuu dib ugu noqdo oo ilmahan ay jaamacadda u soo dirayaan maaha uun inay dhahdaan wuu qalin jabiyey ilmaha laftiisiya laakiin inay awood badan iska saaraan oo ilmahoogii iyo wuxuu ku sugan yahay iyo wuxuu baranaya iyo waayo ilmaha aan waxba baranayn ee loo soo dirayo jaamacadda ee hadhowna shahaado macmala qaadanaya waxaa ka khayr badan ilmaha oo meherad yar loo abuuro laga yaabo inuu berri ama 15 sano kadib inuu ganacsado weyn wadanka wax ku soo beeriyo uu noqdo markaas aan waqtiga looga dilin waqtigu waa qaali waa inay waalidka iyo jaamacadaha iyo dawladdu iska xil saaraan insha Allah oo aynu ku dadaalnaa sidaynu u heli lahayn in jaamacado caafimaad qaba iskuulo caafimaad qaba arday caafimaad qabta iyo waalidiin caafimaad qaba si loo helo waxaynu doonayno ama aynu u gaadhno waxaynu doonayno wadan walba caalamkaana waxa la ogyahay siday dhaqaalihiisu waxay ku xiran tahay waxbarashadooda iyo aqoontooda siday tahay wadan wal oo aqoontiisa waxbarasho ay fiican tahay oo dadkooda aqoon fiican leeyihiin waa la hubaa in nidaamka dawladnimadooda iyo nidaamka dhaqaalahooguna uu caafimaad qabo fiican yahay wadan wal oo waxbarashadiisu ay hooseyso teediisa waxbarasho ay liidato aqoon-yahanadiisu ay liitaan waxbarashadu ay saameynta noocaas leedahay waxaa runa in dhaqaalaha wadankaasi uunu caafimaad qabin oo uu liito waxaana kowkaad wadamada faraha badan ee dunida saddexaad ee Afrika ay kow ka tahay dawaynu arkaynaa xaaladdeenu siday tahay marka inaynu ka dadaalno oo aynu halkan joogno aynu ka kacno hore u socono ayaa muhiim ah aad mahadsantiin Cabdirasaaq waxaad ku soo celcelisay dhowr jeer su'aal ah markuu wadankeenu caafimaad qabo dad badan baa oranaya talo wadankeenu miyuu xanuunsanaya bal halkaasi dadweynaha ku daawanaya oo yarabiyaan kelmadda caafimaad waxaanu isticmaalan malaha dadka xanuunsanaya waxaanu la jeednaa wax waliba caafimaad qabku tusaale ahaan markaynu leenahay waxbarasho caafimaad qabta waa markaynu helayno waxbarashadii loo baahnaa isla markaana la gaarsiinayo qofkii loogu talagalay u gaarsiinayo qofkii caafimaad qabo aqoon u leh oo dhisan oo disciplinkii anshaxii macalinimo wata ardaygiina wato anshaxii ardaynimo la isla xisaabtan imtixaankiisii loo diyaarshay loo ilaaliyay sidii loogu talagalay ardaygiina muddadii loogu talagalay wax la baray markuu soo baxana aqoontii la doonayay leh maaha ardaygu inuu qarin jabiya maaha muhiimadu ama inuu jaamacada ka baxay maaha muhiimadu laakiin waxa weeyaan waxaan u baranayay ardayda qaar waxay u bartaan gabigooguba inay imtixaankan ku baasaan marka waa inaynu abuurnaa hab ardaydeena u saamaxaya inay helaan waxbarashada u baahnaayeen oo wadankeenu waxbarashadu u baahan yahay hadday tahay mid xafiis iyo hadday tahay mid wax soo saar labadaba waa intii aynu u baahnayn aynu helnaa saa waxaan u leenahay dad bulsho wal oo meel ku dhaqan waxay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay hadaan ay garanaynin ama aan la cayimi kareynin waxa weeye dhibteed baa taagan hadaan tusaale soo qaato Soomaaliland 27 sanadood bay jirtay baarlamaanka Soomaaliland ma ansixin waxbarasho wareegii agti ama in xeer waxbarasho oo loogu talagalay lagu maamulo ama jaamacadaha ama iskuulada markaan baarlamaankeenu 27 sanadood aanu ansixin maxay noqonaysaa mas'uuliyadda saaran iskuuladii jaamacadaha iyaga saaray marka waa in la sameeyaa xeerkii oo wasaaraddu markay doonayso inay xukunto wax ee wasiirka la yimaado oo xukumo maaha wareegtadu maaha waa inuu helaa xeerkii kaabayeen marka waa in bulshadu hadday tahay baarlamaankii hadday tahay bulshadii hadday tahay wasaaradii hadday tahay jaamacadii hadday tahay aqoon-yahanadii dawlad mas'uuliyadda iska saara oo qof walbana ogaada inuu waajib saaran yahay haddaanu qofku garanayn inuu waajib saaran yahay dhibaatadeedu bay noqonaysaa markaas oo waxa soo baxaysa markaa in dhaleecayn iyo wax badan ay ku yimaadaan ama jaamacadii la dhaleeceeyo oo la jaamacadu way liitaan waa sidan ganacsi bay noqdeen haddana mar labaad dadka qaar ay eedeeyaan dawladda ilaahay dawladda waxa ma qabanayso dhinacii kale la dhamay ardaydii baan tayo lahayn marka is eedayn dawladda waqtigeeda ku cunaynaay oo ku dhamaysanaynaay xagga la iska eedayn lahaa in isku yimaado wax lagu heshiiyo xagga lagu socono cayimo ayaa muhiim aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii waxbarashada waanu toddobaadkani ku soo qaadannay jaamacadda alfa oo
ka mid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Hargeysa. barnaamijka waxaa idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Xuseen Ibraahim. dhanka kamarada iyo weliba muuqaalka quruxda badan ee aad daawanaysaan waa saaxiibkay Mawlid Maxamed Saciid. sidaa iyo nabadeey.